waxaan markaa isoo kiciyo keenay markii la yiri magaaladii Muqdisho dagaal loogu yabo kelmadaas ayaa isoo kicido keentay meesha dagaalka ragga ku yawahay waa raga wada aqaano oo saaxiibanahay waxaan u sheegayaa nin 20 milyan oo laga soo qaaday meel madaxweyne looga dhigay iyo nin maaragtay xoogaa isagoo masaajid salaad ku tukanaya rag ka mid ah ragga musharaxiinta sheegta waxaan maqlay isagoo dad tujinaya inuu kaar sirdoon ka soo dhacay dad marka dadkii qaxootiga ahaa halkaas ku dhibaateynayay inay inta dalkan yimaadaan haddana yiraahdaan dagaal lagu yaboohayna ilmihiina uga soo tagtaan qurbaha ilmaha nagii korkiisa ku cayaaraan ma yeelayno ayaku dagaal ma rabaan annaka dagaal rabna dagaal rakaan rabnaana waa dagaal nabadoona oo ah nabadoonnimo oo ah nimankaas ujeedada ay u socdaan markaan hoos ahaan uga hadlo wallaahi waa dhaaranaya ayaku ma ay dhaaran waxaan rabaa waxay jecel yihiin soo in dawladdu dunto maahan inay dawladdu inta dunto aan is aragno waxay raadinayaan soo dawlad la'aan maahan wallaahi sidii ilmaha iyo dumarka ay ula joogi jireen ay ula joogayaan rag kamida ragga hadeer maanta dhaaranaya anaa baabuurkiisa uga soo qaaday iyadoo ciyaal ka haystaa marka waxaan rabaa kelmadaasa iga caraysiisay midda kale waxaan rabaa wadaadaha rag qaarkiis waa aqaanaa ururdiineedyo la yidhaha daam jadiiday ka soo jeedaan daam jadiid waxay sameeyeen waad og tihiinoo culummo tay xirata oo sirdoonka la shaqshaqayda oo meelaha tagtagta oo si ardi hay'ad la yidhaha iyo la shaqshaqayn jiray u badnaayeen nimanka dhalinyarada ah oo duurka ku jiray hawlgeliyeen markay hawlgeliyeen duurkii ay geeyeen darajadii ay qaateen maalin walbaba kooxa adduunka geeydiin ma suurtagelayso markaan wax yar idinkaga taabto nimanka maanta ataabaya oo la dawladnimada waxaa hortaagan iyo sharcuucda ha lagu dhaqmo war sharcigii anoo gurigayga iska jooga xabadda ila dhacay oo dawladnimaa lagu fahamsiinayaa ilahaa oo Nairobi anoo jooga la iga soo afduubay oo xamar la i keenay oo maxaa laygu haystaa aan idhi oo la yidhi wax lagu haysta loo yaqaano dawladnimada keliya haddii danta dawladnimada waa isla ayadii war ayadii aa la rabaa in la is ogolaysiiyo war ogolaada dawladnimada midda kaleo taas ku xigta ayaa waxay tahay midda tan waxaan rabaa inaan dadka Muqdisho degan kelmad u sheego waxaa la yidhi dawladda waxaa diiday ajnabigii war ajnabigu midka dhibaatada lagu haayay oo barkee shaqaalaha ka dhiganayay oo jawaajiista loo noqonayay soo maahan oo qaarkood jawaajiista hadeer u yihiin dadaan naqaano oo hadeer mas-uuliyiin sheeganayo oo dawlad lacag laga soo qaaday haddaan xoolahanaga iyo maalkanaga iyo naftanaga dhex nimaadno qof ka adagu ma jiro qof u dawladayn karaahuna ma jiro waxa dhan oo lagu tartamayo oo lagu dagaalamaya waa xoogaaga ajnabiga laga jaajuusnimada looga soo qaadanayo taasna ma shaqayn karto oo ma aqbalayno marka waxaan rabaa hal kelmad inaan u soo noqdo waa ku celinayaa mar labaad nabadda run ahaantii markii la yidhaahdo dadadka reer miyiga oo isderderada isfahamsiinay u baahan yihiin gudda qaran oo nabadeyn iyo nimankan waxaa weeye nin kastoo wasiirahoo boos fadhiya waxaa fadhiya wiil walaalkiis ninkii wasiirkii wiilkiisu ka soo gudbo oo odagiisu ka soo gudbo waa dagaalada yidhaahdo darajada wuxuu ugu sii fadhiyaa qayba ma laha waxaa la rabaa marka ragga miisadaha kuraasta ku fadhiyaa inay difaacdaan kuraastooda waxaa la isku haystaa waa kursigooda ninaan kursigiisa difaaco karin oo ka cesho karin adeerkiis ma ahan inuu inta soo fadhiisto noo dawladeeyo oo dawladaan matalaya ha yidhaahdo waxaa ku soo hartay war Muqdisho ceebtay lahayd waa ogeyn war Muqdisho waa kala qaybsaneen waxa meeshaan taagnaa Xuseen Aydiido ahaa Xuseen Aydiid madaxtooyada asaga noo dhex fadhiyo maaragtay ku booqan jiray Xaaji Muuse oo adna Xaaji Muusena waxaan ugu tagi jiray meeshiisa xarunta waa ku booqan jiray markaan ka gudbaayo meesha waa taqaanaa dhibkaan kala kulmi jirnay waxa loo ordaa taas hadday tahay adeerow ilaahay aan ka baryayna Allah soo badbajiyo faataxada umara hadday taas raadinayaan waayo nabadda in la tuuga sax maahan
laakiin intaan iyo wanaaga iyo muqdisho sharafta ay gaartay ayaa waxaan codsanayaa in laga joojiyo middaas oo aan midooda la raacin. waxaa ku soo haray hoobiyayaalka yaa ridaa la yidhi. hoobiyaalka nimanka riday waa la yaqaanaa, laakiin wixii wax ka dhihi lahaa ayaa la rabaa oo taas ka jawaabi lahaa. waxa weeye dawlad neefleey oo hadda meel maaragtay wadnaha qabsanaysaa dad iskama dhicido. dawladdu waxaa la rabaa inay dadka u talido, waxaa la rabaa dadkii u tali lahaa dalka in la horgeeyo. marka waxaan rabaa warkii waa ku dheeraaday, waana waqti afura. run ahaantii odayaasha iyo khiyaarta iyo dadka halkaan fadhiya waxaan rabaa inaan hal mid u sheego. ajnabiga cagajuglaynaayo le dalka waa ka guuraya, ilaahu naga rar. faatixada noo mara ajnabigu inuu naga guuro oon annaku isku soo harno, markaasay wanaag iyo khayr imaanayaa. haddii ay u haystaan inay wax noo tarayaan oo wanaag noo samaynayeen oo noo samaynayaan wax nagu tarayeen, waxba naguma tarayeen, waa isku kaana diraya. kuwa ka qayliyaya hoteelada oo madaxweynayaasha musharaxiinta seeganaya, nin walbaba xoogaa lacagahu ka soo qaatay imaaraad iyo meel la yaqaano inta la fadhiistay meelow keligiis caana isku daaji. qof uu musharax u yahay ma jiro, musharax jiraahu ma jiro, wax musharax la yidhaaho ma jira. nin walba isaga caana isku daaji. subaxdii haddeer haddaan toga wiil inta wato hoteelkaas camirto ama hoteelkaan imaado oo aan idhaahdo musharaxana, dadku waa iga dhegaysan idaacadahayga dhahaya musharaxa madaxweynaha la leeyahy. wax la yidhaha musharax madaxweyne ma jiraan. nin walbaba qoyska uu ka soo jeedaa, dad wada dhashayaa nahay. 10 nin oo isku haybahoo ilma adeer nala ah weeye. 10kaas nin ninkaan iska celi karin wiilkiisa cesho karin, dowladnimadii yowsan qayb ka qaadanay ha ka tago.